السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سومالي وين أدونك دميشا جوجتين مركو ودورت وعدم وذا سلامة دمانتينا سلامة مسلمك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. marka maanta waxaan rabaa arrin horta xasaasi inaan idin kaga sheekeeyo. arrintaas oo ah noloshayda aniga waxay qabsaday. noloshayda waxay qabsaday waxyaalo oo cajiib ah oo meel walba Soomaalina ay ka jirto. okay marka arrinta maxay tahay? waa arrin nin iyo xaaskiisa reerkooda ka doontay oo soo guursaday sida gabar loo doonto ugu hufan ugu wanaagsan ayuu u guursaday. reerkayga reerkeeda wada kulmay, waan guursaday si wanaagsan ayaan u doonto sharaf leh. sida wanaagsan oo sharafta leh u doortay, sida wanaagsan oo sharafta leh u doortay. marka waxay tahay horta maanta qurbahan joognaa, anigana waxaan ku noolahay dalka Jarmalka, gaar ahaan Munich ama München, cid walba siday u taqaano. weliba ereyadan ay kasii tahay Freisen meel la dhahayo oo elboorka u dhawaan deganahay. marka arrintii qabsato waxay tahay hortakooda arrin oo la yaab leh. maanta gabadhaan si wanaagsan aan u soo guursaday, ma boobin, meel ma kala dhacin, anigii iidoo israbno ma waxaan dhahay ma ogashaa inaan guursado? haa, waan ogolahay inay guursato. reerkaaga lambarkooda isii, way isiis. reerkeeda ma wacin, aniga waalidkayga ugu dhiibay lambarka. si wanaagsan oo hufanaa gabadha ligugu doonay oo reerkayga iyo reerkayga ay wada kulmeen. xaggana arooskeeda oo ka dhacay si wanaagsan, weliba Madiino. ida waxaa waaye Madiina ka soo baxday, anna waxaan ka soo baxay waa beri. marka horta arrinta meesha koowaad ay iga bilaabatay yar saaxiibkayga dadka aan ka jeclahay, magaciisana midaan sheegay, waan dhaqaaleyn jiray, waan jeclahay. kuwa igu hooyada igu aabada ahaa hataa ka jeclahay. marka xaaskayga waxay ku jirtay da'yar xilligaaseeti, hada sanad iyo bar ama 2 sano wax yar dhiman ay ka soo wareegatay xilliyadaas. gabadhii waa u soo dooday, uuray ii qaaday, alxamdulillaah. oo mitaane 2 wiil ilaahay mahad weyn u sugnaatay. waa hadiyad aanan la helin oo dadku ilaahay ugu talagala siinay. ilaahayna waxaan ka baryaa ciddaana haysanin inuu ilaahay siiyo. marka gabadha way ii soo wareegtay. wiilka marka aniga daacadaan u ahay, maadaama aniga daacadda aan u ahay, oo waxaa ii sheegtaa wiilkaanid saaxiibkayga oo yahay, guriga oo imaan jiray, xaaskayga aan isbaray, xataa lambarkeedaan siiyey. laakiin xaaskayga qof caqli badan, alxamdulilah, allah ii dhowro. gabadhii oo u maanaa soo waca, wuxuu leeyahay ninkaaga saasoo dheh, wuu iga been abuuraa. oo maxuu ku dhahay ii sheeg. wuxuu dhahay gabadhaan aniga maanta aan qabo, naagna waxaa loogu guulaystaa oo loo gumaystaa inay cayaal badan ay ku dhasho. haddii cayaal badan hadday ii dhashane madaxan kaga istaagaa. markuu u sheegay waxay dhahday maxaa warkaan igugu sheegay? waxaan kugu sheegayo dha warkaan waa nin haddii adiga waa ogtahay shaydaan hadduu qofka adoo yahay meeloo kaa soo gala ma waynay. waa suuratu naas aayadda ugu dambaysa, weliba jinka iyo shaydaanka ee ka hadlay iyo insaanka xataa aayadda ugu dambaysa fiiriya.
min aljinnati wannaas, jinkuuna ka mid yahay bini aadankana wuu ka mid yahay. caqli xaaskaygii inuu ku maroo rabay, walaalay maya anigii adiga isku tolaanaanay. naag kale hadday ahaan lahayd isku tol aana ahaan lahayn warkan kuuma sheegi lahayn, laakiin maanta warkan waxaan kugu sheegaa isku tol aan ahan labadeena. ninkaasi tana anagaa tol kule waan kaa furaynaa, haddaan adag ku qanacsanayn kida waay xaggee ka dhacday, isoo dur, abadiye isdur, weligeeda isdur, habu dhalin, ama xataa 5 sano habu dhalin, ilaa 5 sano isdur. waxay dhahday ninkayga kama kor tilaabsanay, haddaa rabana waa isduraynaa, haddaa rabana isma durayna, waa heshiis anagana dhex yaalo. xaaskayga way ii sheegtay, way dhaarisay, ha sheeginay dhahday, ballan waayaan dhahay, qalbiga kaama sheegay. waxaa igu ballan ninkaas laakiin inaana wacin ilaa uu isoo waca mooye. hadduu isoo wacane guriga kama goynin aniga, wii imaan jiray, weli hadalladeena weli waa saaxiibtinimada meesheeda wax aan ka bedela male. marka dambe asaa is gartay inaan aniga waceelin, asaa i jaray, cadaawadna wuu ii qaaday. maxaan ka galabsaday aniga, maxaan ka galabsaday? okay, marka xaaskaygii iyo gabar kale ayaa isqabsadeen, hadal aan isku qabsaday. anay meelaha igu cayso waan joogay, aniga marka waa beryaan ka soo baxay. wax walboo caytina ama qofka daarigta haddoo noo ataagaayo ama uuna soo weerarayo ujeedno, kaftanaa ugu baxnaa, dagaal ma jeclin. adi gabadha way wacda, waxay dhahday ninkayga maxaa saas u dhahday. horta qofaa soo wacay iyada, wuxuu dhahay ninkaagi gabadhaa siti ayaa saas dhahday. gabadhiyaa wacday xaaskaygii, intayna wacin anaa isoo wacday, waxay dhahday arrintaas maku qabsatay, hal i caayo, waxa la raba hal i dhaho, adi waxba makaaga shaqul jiraan dhahay. qoftaasna ima caynin faraha ka qaad, qoftaas ima caynin faraha ka qaad. okay, gabadhiyaa wacda, walaalay ana saas makaa istaahila. gabadhi markaas siti waxay dhahday yaa kuu sheega? kuma sheegay dhahda, wallahi ciyaalkayga lagu dhaariyay, oo ciyaalkaygina habaryar amar ugu aadan tahay, mar ninkan dumaashigaaga oo yahay. gabadhi kale saaxiibteeda wacday, waxay dhahday an dhibaatadaas ay qabsatay, walaalay saa ma istaahilaa. markaas siti waxay dhahday yaa kuu sheegay? warka noo sheeg. kuma sheegay dhahda, ciyaalkayga lagu dhaariyay. ada taleefonkay ku dambaysa, hadalka way soo gaabisay. anigu waa maqanay, waxba ma ogi, wax aan ka ogahay haba yaraata male. gurigaan imaaday, yaraa saaxiibanana isoo wacay. markaasita waxay dhahay nio inaan kuu imaadaan rabaa, ii imaan waan dhahay. haddaan guriga soo galay, dharkayga jiifkaan gashanaa, surwaal sports iyo garan caadi, hoosaan kugu soo degaa, dacadsana waan soo gashanaa. okay saaxiib, waa mahadsan tahay. markaa fadhiga aa imaaday, gabadhiyaa leenka soo wacday oo anigii caysay, laakiin ani kaftanaan ka soo qaaday, arrinta heerkaas ma gaarsiin. xaaskaygana waa la hadlay, arrintaas ka haraan dhahay. markay soo wacda leenkaan qabtay, yaa waay hebel waay, miigu dhiibi kartaa xaaskaaga? haa dumaashiye waan kugu dhiibaa. waa ugu dhiibay. dadkaas dhan iyo waxaas dhan ciday garanaysa male, kulli anaa baray, madaxaygaan lagu wada bartay. marka gabadhi aan u dhiiba taleefonka xaaskaygii, caytinaa lagu bilaabay, samiicaddaa furneed. xaaskayga caytama rabta, anaa taleefonka damiyey. maxaa dhacay aan dhahay. isla marka taleefonkii wacda, naagna waa taqaanin, ninkeeda haddaa laga soo maro way kullaaneen. sidaan anagana u dulqaad badannahay, rag aan ahnay, naaga u dulqaad badan way jiraan, laakiin ma badno. marka taleefonka wacday, iyadana way caysay, taleefonkaa ka damiyey. waxaan dhahay ii kor tilaabsan, anaa odaygaaga waan fikiray. marka waxaan dhahay wiilkan gabadhan inay la socota laga yaaba, hadday imaado daaqada oo dagaal iyo waxaas oo ka dhaco, askar haddaa loo yeeray iyo dhibaato weyn ee dhacdo, soo kama haboono wiilka adiga inaad la hadashid oo saaxiibada aad tihiin, gabadhana yaqaano, inaad u tagtiin, gabadhana aad la hadashid. okay, taasaa igu soo maaxatay. laakiin waa dhaqankeena Soomaaliyeed, dhib yar haddoo dhaco, odaygii inuu baxo, dadka oo soo maslaxeeyo, ama laga gardarnaado ama ha gardarnaadaan. waan baxay, wiilka saaxiibkayga u tagay. ilbaabka marka labada gabdhood aa ka soo baxeen oo xaaskayga wacday,
markaasay tahay waxaan dhahay aaba yarka saaxiibkii koruu saarayan wuu soo degoyaa okay aan dhahay markuu asaga soo baxay maa gurigaygana geesiin oo dha qolka maana gelisiin may jirkaa ku wada hadlayna anigu waa iska aamine yurubaa dhibaato lagugu geysanaya dhib lagugu geysanaya isma dhihin okay jiradkii aan galay adi gabadhii meesha isku waashay anigu waxaa isku dayay inaan dejiyo si wanaag adduunka dagaalaa u nacbanay ma jecli gabadhii marka taleefonka mala kala baxaya dhahday okay aan dhahay xaaskaaga waxay dhahday ha sheegto qofka xaaskayga aan wacay sheegaan dhahay ma sheegay dhahday ciyaalkaygaa ligu dhaariyay mid kalena waan ka booday gabadha kale ee isqabsanaya ma ogi gabadha kale markay waceysay waxay dhahdaa haddaa ciyaalkaaga lagugu dhaariyey oo ciyaalkaagii anaga yaa jeceshahay jaahilnimada day anigii adiga isku talaanahnay waan is leenahay laakiin ciyaalkaaga isma lihin nin kaleoo qabiil kalaa kaa dhalay subxaana allah alciyaazu billaah ilahan ka magan galna taas ha marka gabadhii markay saas ay dhahday wiilkii aan weydiiyey waxaan dhahay taleefonka markaan soo wacay meesha eedan ka gudbina taleefonkaa soo wacay xaaskayga ma sheegay dhahday ciyaalkayga lagu dhaariyey markaasii tay waxay dhahday haddaa ciyaalkaaga lagugu dhaariyey caawa odaygaaya gacanu nagu jiraa meeshaan igu cays anigoo aan taagana taleefonkiyaa damiyey waxaan dhahay ereygaan ka daba tagay waxay ahayd caawa gacanu nagu jiraa maxay ku leedahay waxaan dhahay marka saaxiibkaygiio adaan kuu imaaday adaan rag ahe gabadhan maxay leedahay caawa gacanu kugu jiraa okay o dhahay sug arwaaxo gabadhiioo weydiiyey markaasita waxuu dhahay maxaa saas u leedahay gabadhi kalea soo booda caawa gacanu nagu jiraa aniga already shakiyaa i gala marka taleefonkii jaabka gashaan hoos dhayaa laiga dafay gabadhiyaa iga daftay ee xaaskaygii ee wacday ee dhahday ninkayga maxaa wacaynay gabadhaasaa taleefonka jibisay ookiyaal oo garaadana waan watay ka mid ka qurux badan aan watay oo madow ah fiidiyoyaasheeda dib waa u fiirin kartiin badanaa igu jiray ookiyaalkiina waa laga jibiyey kuleedkii ku dhigtay way qeylisay gacanaha u qaadin oo wiilkii dhahay wallahi gacan naag uma qaadayaan dhahay markhaatiyuna ka yahay naagta gacan uma qaadan gacmihii gadaalaan ka ceshtay raggaa soo booday 3 rag wiilka guriga oo xaaskayga beenta u sheegi jiray iyo wixii oo asaga lee dib igaga goostay anigana aan ku dhegdhegan war aanu ku qabsan war iyo dagaal iyo dhibaa adduunka u necbanahay wiilkaasiita iyo 2 wiil kale gacanaa la ii qaaday iyo gabadha waa la igu goobtay hataa waa kana bararka weli inta wuu ka muuqdaa meeshaan waay ilaa halaas waay marka aan dhibaatadaas marka la ii geystay horta siyaasadda waxay tahay marka haddaa lagaa tira badan yahay biyo kaa badan iyo dad kaa badan way ku qaadaan iska caabin ma samayn karti waa inaa meesha ka baxsataa waan ka baxsaday meesha iskaraan keenay weliba waxaan iska aaday meel baanhofka dhaan tariimada laga raaco baanhof cid taqaanee oo fraysin ah aan tagay wiilaan garanayaan taleefon ka waco soomaali ah taleefon ma wati askarta see u wici karaa askarta meesha ugu imaada waa la tagay adiga meeshaa la fiiriyey wixii oobi la qori karana waa la qoray cidda dhuuman kartana way dhuunteen laakiin waxaas dowladday u taala markaas gabadhan dhibaatadaas aniga la ii geystay dhibkaasi waxaas dhan la ii geystay waa dadka ani soo dhaweysanay cid walbana way taqaanaa faraysin dad walba baasaboorka anaa u xariinay anaa u turjubaanay hal sentina kama qaato calaa baasaboorka ama turjubaan qof haddaa wacanaysa waa 80 euro ugu yaraan ama 100 euro ama 100 iyo abaf wax ka badan abaf okay iyadoo saas ay tahay marka aniga maxaa geystay maxaa ligu dilay maxaan galabsaday hal mid way ka go'day ana odaynimaa meesha u tagay madaxaan ka salaaxay sujuudda xataa ka dhunkaday iga raali noqo waxay leena meesha shar ka soo socotaan ogahay dagaal iina ma jecli waddankaa muddaan ku noolaay nadiifaan ah markaasaa waxaan dhahay walaalay iyadoo taas ay tahay iida halwiya u furnaa waxay dhihi kartay arwaaxo dumaashigaygaa tahay inta ka baxa xaaskaagii anigee noo taalaa haddaa laydhaa xataa aniga shiba iska dhiilahay waan soo bixi lahay
xaala mansuur iyo waxyaala saasaan samayn lahay hoosoosaad odayaalaan diri lahay wax waa la xalin lahay sooma laakiin shirqool ani maxaa laga shirqoolay maxaan galabsaday maantana yurub haddaa la dhaho qabiilka lagu joogo waa qabiilkeygi oo interviewga xataa markaa maray dadka ay dhaheen naagta interviewga iga qaadaysa markaa jarmal soo galaya 2008 arwaax okay qabiilkaagi dad walbo inta hadda jarmal noo diiwa gashan qabiilkaagi u badan yihiin waa tiro badantiine maxaa dhacay ani markaas itaa waxaan dhahay wax walba googlaha iyo waxaas dhan ka fiiray aniga nin ashraafaan runtaa idan sheegaa ashraafaan cid walbane qurbaha ku nool maraykanka ama yurub ama austraaliya waxaa lagu jooga waa qabiilkeygi badanaa ana qabiilkeygii weydiinaya xataa maray cusbaayeen wiilkaasaa ashraafa u tag waan caawin jiray waa u sheegi jiray dad badanaa qabiilkeygi ku joogo ana xaasid mi daddaa u turjumaanaya waan dhihi karay lacagaa idan kaga baahanay waa la gorgortami karay lama gorgortamin cidna waxba kama qaadan laakiinse waxa taagan waxay tahay nin iyo xaaskiis ama naag iyo ninkeeda dad dhan ayagaa iskugu dhow labadoodane waa hal maro oo ishubsato waana hal naf laba shaqsi iyo naftaas dhadhankaas iyo waxaasaa la kala duwan yaha maogiye waa laisku lifaaqmaa cid walbana ayagaa iskaga soo sokeeya marka anigu waxaa idan dhihi laha hal mid aan kaga dardaarmaa yurub ama qurbaha wax saaxiib lahay ma jiro nin weyn oo hadda ka hor saaxiibkayga ah iga weyn yahay laakiin zaaid uma weyno waxay dhahay faransiis had ka hor waxay ku mahmaaheen cid walba saaxiibaa ka dhiganaya haddaa dhahda waxay ka dhigan tahay adoona saaxiib lahayn waxay ka dhigan tahay adoona saaxiib lahayn marka aniga saaxiib ma lihi runtaa idan sheegaa saaxiib ma lihi cid walba waan garanaa laakiin hadda ka horaan qaldamay cid walba saaxiibaan ka dhigtay xaaskeyga waxaa mile ah mataana caloosha ay ku sido cid walbaa u keeni jiray gurigeyga ilaa 4 habeenima lagu gaari jiray ama 10 sidaa taqaaniin tariinka ugu horey markaas subax la furaya la raaci jiray xaaskeyga qada quraac cash jikadaasi taagneed uure lahayd waxay dhihi jirta xataa dadkaaniiti dhibaatadan iyo waxaan aniga u maray cid anigii og ma lahan ninkeygiio dadkaanne soomaalina anagaa ka dhalna anaa garanaya waa cadow ani waxaan dhihi jiray weji ahaan dadka waxa u siin ilaahay dartiis ahaan dadka waxa ugu qabano gurigeygina waqtiha lagu qaato maadaama yurub sida soomaaliya camal ayna ahayno oo gurigeyga playstation lagu dheelay wax walba lagu baashaalay marka maanta anay qabsatay hurdadane haddaan ka kacay marka hore iima kala socneen dadka maxaa yeele ciyaal waa beri waa taqaanin aan dadka iima kala socneen maalinta cadow yeeshaa idan sheegaa weliba maalinta youtuber aan noqday cadowgeyga waan dareemay laakiin dheg jalq uma siin maalinta kale xigta waxay tahay markaa aniga heese aan soo qaaday fanaan aan noqday cadowgeyga markaasu sii batay xaaskeyga heese soo qaaday la foole qofkii yaqaanaa yaqaan qalbilula way ku qoran tahay youtube-keyga qalbilula marka waxaa marka wadaqe ay ku dhisan tahay xaaskaygana qaaliyaa la lahaa meesha oo ugu dambeysa oo gelinayo hiboy caawan qirayaa ani waxaan dhahay qaali caawa qirayaa xaaskayga magaceedaan gashtay meesha cadowtinimada ka bilaabatay tolkeeda dad walba waa u imaana waa lagu diraa waxaa leeyahay ninkaanita iska fur qabiilkaaga maa waayse ababa war qabiilkeeda hadduu guursado xataa anay caruur iyo haysaa caruurtaas haddii oo qof qabiilkeeda tusaale ahaanaan ka hadlaa waaba kala tagnab tusaale ahaan qof qabiilkeedaa guursaday hadhow waxaa leeyahay xataa ani waan ogahay nin qabiiraan ay wax fahmahay cayaalkaaniiti anaga iyo adiga isku tolaanane cayaalkaani waa tol kale qaylidooda iyo dhibkooda aniga maxay ii dhibe
haddii ahaan lahayn xataa isku tol anaga aan ahnay aan ahaan lahayn waa u sabri lahay xataa tolnimadan ku qaadan lahay marka qofka dumarka markaas wuxuu ku noolaan lahay bahdilaad iyo rafaad iyo ku noolaan lahayd ama gurigeeda la duminaa ciyaalka vaaganada wax la jiidaayo ma lahan balamada wax usoo qabanayo ma lahan ya wax oo u dhaqdhaqaaqayo ma lahan laakiin reerkaagaa la burburinaa dad badanay ku dhacday meesha aan deganahay laakiin aniga iyadoo igu socto usha boolkii aniga aan dhuujiyo dadka markay isku dayaan inay dibciyaan anna waan sii dhuujinaya waa laga guulaysan waaye marka waxaa idan leeyahay cidda xumaan ii aragtay aydan ka raali gelinaa ciddaanu xumaanna ii arkinne oo wanaagga jecel wanaaggeeba jecel yihin saanay ugu taageeraya ma garate marka waxaa idan leeyahay walaalayaalow ilaahaygiina halaga cabsado ilaahayna halagaaga dhawaado ilaahayna halagaaga dhawaado soomaalina dowlad kama soo socto soomaali dowlad kama soo socto marka waxaa idan leeyahay maalinta haydan wacnaato ramadaan wanaagsan khayraana idan rajeena waxaana idinkaga tagaa salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu